Kani waa Benjamin Mendy kaasi oo ku caan ahaa kubadda ciyaarista. Waxa uu u ciyaaray kooxda Manchester City iyo xulka qaranka Faransiiska, balse 2 sano ka hor waxaa lagu soo eedeeyay fal ka baxsan kubadda cagta oo ahaa inuu geystay kufsi, kaasi oo noqotay inuu kubadda gabi ahaan laga mamnuuco kadibna loo taxaabo xabsiga. Balse in muddo ah waxa uu ku xirnaa xabsiga, laakiin maanta wuxuu Ilaahay qadaray in xabsiga laga soo daayay kadibna markii lagu waayay wax dambiye ah uu geystay. Ciyaaryahankan ayaa in muddo ah waxaa xirnaa maxkamadda, balse wariyihii goobta ku sugnaa ayaa weydiiyay maxaad dareemaysaa maadaama lagu soo daayay xorriyadaada heshay, laakiin waxa uu ku jawaabay hadal qof walba oo yartahay inuu ku hadlo. Football fans around the world just would like to hear a few words from you about how you feel. Alhamdulillah. Kelmadani ayaa qofka muslimka ah ugu shukrinayo Allah, waxaana ay kelmad ahayd alxamdulillah, waxayna islaamka ugu fadhisaa macno weyn. Allah ayaa mahad iska leh oo si nabad ah ku soo daayay.